Okay, good. All right, bismillah ar-rahman ar-rahim. Dr. Nuno, maanta waxaan ka hadlaynaa marka how to perform sida loo sameeyo macnaha muxuu ahaa echocardiography. Saas daraadeed marka echocardiography-ga marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa wax la yidhahdo long axial view ayaan ku bilaabaynaa. Long axial view-gaas marka waxaa waaye halkan waxaa noogu muuqda left atrium, halkan waxaa waaye aorta waaye, halkan waxaa waaye right ventricular, halkan waxaa waaye left ventricular. Kani waa mitral valves waaye, kanna waxaa waa aortic valve waaye. kuwan waxaa waaye papillary muscleska waaye iyo tendinkii wixii waaye. saas daraadeed marka tan marka la marayo kale waxaan samaynaynaa marka ugu horeysa waa cabiraynaa, marka cabir baan ka qaadanaynaa. cabirkan ka qaadanayna marka waxaa waaye freeze baan leenahay. saas daraadeed marka waxaan fiirinaynaa motionka oo maaragtay muxuu ahaa anterior leafletka of muxuu ahaa waxaan fiirinaynaa oo mitral valveska. kadib marka waxaa waa bartankan geynaynaa, kadib baan cabiraynaa, marka cabir baan ka qaadanaynaa. septumkan baan cabiraynaa, kan waa interventricular septum waaye. normal waxaa laga rabaa marka qiyaastiisa waa saxaya waa normal. kadibna kan waxaa laga rabaa marka muxuu ilaa iyo maaragtay muxuu ahaa kii 57 baa laga rabaa waa 49 hadda waa normal. iyo posterior wallka oo ah midkan oo macnaha muxuu ahaa left ventricularka. marka midda kale waa inaan isticmaalnaa halkan waxaa ku jira waan ka cabiri karnaa macnaha left atriumkii baan cabiri karnaa, iyo waxaan cabiri karnaa aortaha khaasatan qaybtiisa maaragtay descendiska ayaan cabiri karnaa. okay kabacdi marka waxaan samaynaynaa marka alright halkan marka waxaa waaye okay halkan marka waxaa waa papillary muscleski, kan posterior wallki waaye, kan left atriumka waaye, kan waxaa waaye taas markay tahay kadib waxaan u reegi karnaa marka wax la yidhahdo short axial view baan u reegi karnaa. short axial view markaan dhahayno markaan saan dhahayno papillary muscle-ki baan waxaynaynaa, halkan waxaan ku jirnaa left ventricle-ka baan ku jirnaa. saas daraadeed markaan saas dhahno waxaa waa mitral valves baa hadda ku aadan oo eeg, kadibna qaybtan waxaa waaye track macnaha muxuu ahaa saddexdii oo maaragtay lambiska oo aortic valve waaye. kan waa tricuspid valve waxaan ka fiirinaynaa isaga macnaha hadduu regurgitation waxaas leeyahay aan ka fiirinaynaa doubler ahaan. okay kadib waxaan samayn karnaa marka waa fiirin karnaa, si toos baan u fiirin karnaa. okay ma jiraan marka wax regurgitation ah. halkan waxaa ku jira pulmonary valve baa ku jira isagana waa fiirin karnaa macnaha hadduu leeyahay macnaha wax regurgitation ah, ama hadday jirto macnaha pulmonary hypertension oo kale markay jirto oo kale ayaan fiirin karnaa oo kale oo ah qaybtan iyadana marka waxay noo tilmaamaysaa marka in aysan jirin marka la cabiro. marka saas daraadeed marka haddaan usoo laabto marka qaybta kale ee ah in aan sameeyo four chamber inaan sameeyo. four chamberka markaan isticmaalayna waa qaybtan asagana oo ah waxaan arkaynaa afarta chamber baan arkaynaa ee wadnaha. okay afarta chamber kan waxaa waaye left atrium, kan waxaa waaye right atrium, left ventricle iyo waxaa waaye right ventricle. kadib waxaan ka dhigi karnaa marka afar qaanadood asaga shan aan u bedeli karnaa. hadda shan qaanadood waaye, shan qaanadood baan ka dhignay hadda. shanta qaanadood waa maxay aortiga inta kasoo baxaya, kuwana waxaa waa aortiski iyo maaragtay muxuu ahaa marka hadda shan qaanadood waa kow labo aortigii saddex afar shantii waa marka ayagana waxaan ku fiirinaynaa marka doublerkaan ku fiirinaynaa haddii uu jiro regurgitation iyo wax noocaas oo kale. okay waxaad moodaa xoogoo yar maaragtay muxuu ahaa kii in aortic valve-aha uu sameynayo xoogoo yar maaragtay muxuu ahaa maybe inuu noqday xoogoo calcified oo uu noqdo marka inuu sameynayo xoogoo yar turbulence inuu dhalayo. okay turbulence inuu dhalayo. okay yaad isleedahay xoogoo yar marka waxaa markii ka kan waxaan waxaa loo yaqaanaa marka waa freeze baan ka dhigi. waxaan oo macnaha midabkan mosaic ah waxaa loo yaqaanaa marka inay tahay wax loo yaqaano muxuu ahaa kii turbulence baa loo yaqaanaa. badanaa waxay timaadaa markay jirto regurgitationada iyo markay jirto maaragtay muxuu ahaa maaragtay iyo stenosis markay jirto ayay badanaa imaadaa. okay waa Dr. Nuno oo idin leh ka faa'iidaysi wanaagsan.